barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybaha kala duwan ee hubka dalka Ruushka uu isku difaaco iyadoo muddo dheer ay Soomaalidu ku soo halqabsan jirtay kelmadii halhayska ay ka dhigteen ee ahayd hanjabaadda Ruushkuba hubka way samaysaa weli habarse kuma dil haatanse waxay arrintu u muuqataa mid sidaa ka duwan iyadoo colaadaha oo Ruushku kaga jiro meelo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Ukraine ay muujiyeen in quwadiisu ay tahay mid aan la yaraysan karin hubka waxa ugu horeeya markabka bariga gaarsiiyo hubka iyo ciidamada uu sido ee noociisu yahay Zubra waana markabka ugu dheereeya maraakiibta dagaalka iyo dunida waana markab kale 4 maraaxadood ee waaweyn ee dhabarkiisa dambe ku yaala waana markabka ku kor socon kara biyaha barafka iyo barigaba waana markabka ay u suuragalka tahay inuu ka tallaabo caqabadaha iyo jidgooyooyinka loo dhigo xitaa moosaska ciidda ee 1 mitir iyo badhka gaaraya waana markabkii qaadi kara saarada culus ee ciidamada iyo cutubyada ciidamada ee sida degdega u gurmada isla markaana ku dejin kara xeebaha aan loo sii diyaarin markabkan dagaal qiimihiisu waxa uu gaarayaa in ku dhow 80 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxaana masaaxadda gurada oo wax ku qaada ay gaaraysaa 400 mitir oo square isagoo qaadan kara shidaal gaaraya 566 tan markabkan oo ay adeegsadaan ciidamada dalka Ruushka waxa uu awood u leeyahay inuu xambaaro taangiyada dagaalka oo culeyskoodu gaari karo 150 tan iyo 140 askari oo miisaankoodu gaarayo 130 tan oo ay soo raacaan 8 gawaarida gaashaamana oo ilaa 115 tan ama qiyaas ahaan 8 taangi ama 500 askari oo ay qalabkoodu dagaalkuna u dhameystiran yihiin hubka kale ay Ruushku ku goolaftoyaan waa gaashaanka dhanka difaaca badda ee Robocop kaasoo ay ku rakiban yihiin gantaalaha Balma oo ah gantaalaha ka hortaga diyaaradaha waana saarada diyaargarowga ugu sareeya ugu jirtay inay jiha kasta ka difaacdo qaybaha kala duwan ee maraakiibta badda waana hubka ku filan inay rasaasta ay hurgufayso kaga hortagto weerarada maraakiibta cadowga soo qaada iyadoo Balma ah shay soo shabahay jirka aadamaha taasoo madaxeedu qaabilsan yahay aragtida iyo ilaalinta qaabka elektaroonikada ku shaqeynaysa hubka saddexaad ee dalka Ruushka isku haleynayaan waa diyaaradda dagaalka ee Sukhoi 47 waana diyaaradda aad u maleynayso in baalasheeda loo rakibay oo loo sameeyay si khaldan baalasheeda qaabka casriga ah kugu muuqanayana waa farsamo horumarsan oo ay ogaadeen jenerada ciidamada Ruushka waana baalasha kordhinaya duulimaadkeeda degdega waxayna ay karti u leedahay inay waqti kooban kaga dulhaado maraakiibta xambaarada diyaaradaha kadibna hawada isku maqiiqdo baalasheeduna waa kuwa siinaya fursadda isla barooga iyo habadhina isu gedgediga ee ay sameynayso xilliga ay duulimaadka hoose ku jirto waana diyaarad leh gura hoose ay wax ku qaado hubka kale ee Ruushku leeyihiin waxa kamid ah diyaaradda markabka ee Icar Opal waana shayga gaadiidka kamid ah ee u dhaxaysa maraakiibta iyo diyaaradahaba waxaana ay ku duuli kartaa saacadiiba masaafo gaaraysa 550 kilomitir joog hoose oo dhowr mitir oo kaliya ka sareeya biyaha badda taasoo ka badbaadinaysa miinooyinka badda lagu aaso waana markab diyaaradeedka aanay raadaaradu qaban karin waana gaadiidka qaadi kara cutub dagaalyahana oo gaari kara ilaa 200 oo askari oo ay weheliyaan 2 taangi waxaana ay xambaari kartaa gantaalaha maraakiibta lagaga hortago dadka qaarkiina waxaba ay ugu yeedhaan dilaagii maraakiibta xambaarta diyaaradaha